aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato ramadaan kariim ilaahay baa mahad leh allaha soo ina gaarsiiyey bishani aadka u qiimaha badan bishani sharafta leh bishaan lagu sharafay ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda muxamadiyada ah waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka taabto fadliga ay leedahay bishaan ramadaan waa bil lagu talagalay cibaado waa bil cibaadeed waa bil quraan akhris waa bil lagu talagalay cibaadadii la sameyn jiray in la laba jibaaro waa bil ay kala sare mari doonaan kuwa alle sida saxda u garanaya iyo kuwa aan alle sida saxda aanan u garanaynin bishaan ramadaan waa bishii la soo dejiyey quraanka kariimka ah ilaahay quraankiisa waxa uu ku leeyahay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan tani waa bishii quraanka la soo dejiyey tani waa bishii quraan akhriska tani waa bishii loo kala dhawaan lahaa alla xaqiisa tani waa bishii tartanka tani waa bishii lagu tartami lahaa cibaadada maalin maalmaha kamid ah rasuulka oo koraya minbarka ayaa waxa uu yiri aamiin 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 marka uu rasuulka dhamaystay khudbadii saxaabadii ayaa weydiiyeen rasuulka waxa uu ka aaminsaday ama waxa uu ku aaminsaday saddexdaas aamiin waxa kamid ahayd in uu rasuulka yiri sallallahu alayhi wasallam jibriil baa yiri qofkii ramadaan haleela oo gaara oo aan loo dambi dhaafin kaasi naar waaba galayay allah ku fogeeyay buu yiri jibriil aniguna waxaan iri aamiin waa mid kamid ahaa saddexdii aamiineed qofkii gaara ramadaan kaasoo loo dambi dhaafi waayo kaasi xaqiiq waxa uu gali doonaa naarta anagana allah naga haye bisha ramadaan waxa ay ka kooban tahay ilaa iyo 3 qaybood qaybta koobaad oo ah naxariis ma dareemaysaan maalmahani tobanka ah in jawigu uu aad u degay in naxariis alle ay dhammaanteen korkeena ahaatay ma dareemaysaan cabsi in aysan jirin sababtoo ah markii koobaad ama inta ramadaan la gaarin waxa jirtay cabsi zaid ah oo aynu ka cabsanayno cudurkani aadka u socda balse maalmahan shalay iyo maanta ama maalmahani uu ramadaanka bilowday dar alla baynu ku degnay waynu xasilnay qofkana waxaysan xataa qanaaca rabbi buu ku sugan yahay naftaada degan anagoo dhan waynu wada degannahay cabsi aynu dareemayno ma jirto sababtoo ah tomankani waa tomankii naxariista ilaahay baa naxariistiisa korkeena yeelay wax aynu ka cabsanayna ma jirto deganaan baynu dareemaynaa qofkana waxaysan xataa inta yar uu haysto ku qanacsan yahay waa qanaaca rabbi ilaahay baana la jira taasi waa naxariis ilaahay baa noogu naxariistay bishaan ilaahay baa noogu fadilay ilaahay baa wax khayr qaba inooga dhigay qaybta labaad oo noqonaysa 10 ilaa iyo 20 kana waa maghfirada waa dambi dhaaf ilaahay inuu noo dambi dhaafo ilaahay inuu noo naxariisto dambiyadeena oo dhan uu dhaafo goorta ilaahay dambigeena uu dhaafo maxaa dhacaya marka goorta dambigeena la dhaafo waxaynu isku garanaynaa in cibaadadu ay noo fududahay in quraan akhrisku noo fudud yahay in wax walba khayr ah ay fudayd inoo yihiin goortan dambigeena la dhaafina waxaynu dareemeynaa in cibaadadu ay aad u noogu adag tahay inaanan waxba sameyn karin in caajisku naga xoog badan yahay iyadoo shayaadiintu ay xiran yihiin bishan waxa ay ku fadli badan tahay bilooyinka kale ugu fadli badan tahay waxa weeye shayaadiinta oo dhan baa la xiray shayaadiintii waaweyneed ee dadka fasahaadin jirtay oo dhan baa la xiray kuwan yar yar hadaan ka faka weynana waa dhibkeeda tomanka dhexe oo ah dambi dhaaf ilaahay dambigiina inuu noo dhaafo goortaas dambigeena la dhaafana cibaadada ay noo fududaato alla ka cabsiga uu fududaado qaybta ugu dambaysa oo ah naarta in la iska xureeyo habeen walba oo bisha ramadaan kamid ah waxa naarta laga xureeyaa 60,000 oo shakhsi marka habeen walbaahi marka 60,000 laga xureeyo qofkii kamid uu naqan waayana waatii jibriil uu sheegay naarta allah ku fogeeyo uu yiri rasuulka qofka ugu sharafta badan inta uu rabbi abuurayna uu yiri aamiin hadalkaasi hadal yar maaha ilaahay baa waxyi ahaan u soo diray jibriil baa duceeyay khalqiga ninka ugu sharafta badnaa baa yiri aamiin ducadaasi maxaad malaynaysaa marka qofkii loo dambi dhaafi waaye bishaan ee naarta laga xureyn waayana kaasi naar waaba galaya ilaahay naguma daray ilaahay hanaga xureeyo naartiisa 60,000 oo shakhsi oo naar ku xukunaa in ay galaan baa laga saaraya naarta oo la leeyahay magacooda jannada ha lagu qoro naarta waa laga xureeyay rabbu nagu dar intaasi
marka bishaan fadli kala bay leedahay fadliyaal aad u badan bayna leedahay bishaan aynu ka faa'iideysano ilaahay aan ugu dhawaano quraan akhriska aynu badino aynu ku tartanno quraanka aynu dadaalno dambiyadeenna si uu ilaahay u dhaafo naxariista rabbi ilaahay si uu korkeena u yeelo ilaahay cuduradan iyo waxyaabahan wareegaya inuu naga ilaaliyo aynu ku dadaalno bishaan waxa kale oo ay fadli ku leedahay waxa ku jirta habeenkii la yiri laylatul qadri waa habeenkaas oo lagu sheegay in ay ku dhex jirto bisha ramadaan gaar ahaan 10 dambe gaar ahaan witriga ama 21 23 25 27 iyo 29 ayaa lagu dhex qariyay waa habeen ka fadli badan habeenada ilaahay uu abuuray oo dhan habeenkaasi waxa ay gaar la tahay in ay u dhiganto 1000 shahrin in ay u dhiganto ama 1000 bilood waa habeen ka fadli badan 1000 bilood culimadu marka ay qiyaaseen 1000 bilood waxa u soo baxday in ay la mid tahay 83 sano iyo bilooyin 83 sano iyo bilooyin ay ka qeyr badan tahay habeenkan marka habeenkan qofkii haleela muxuu sameeynaya ama laylatul qadri hadii lagu wareeriyo waxa la sameeynayana aadan garanayn waa dhibaato habeenkan qofkii haleela waxa ku filan in uu sameeyo in uu 2 rakacadood dugto oo kaliya 2 rakacadood inuu dugto in uu rabbi baryo ayaa ugu filan habeenkan wuu haleelay haduu 2daas rakacadood dugto habeenkan oo dhan wuu haleelay marka inaad ilaahay bariso laylatul qadri hadaad haleeshana waxa lagu darayaa xasanaad 83 sano iyo bilooyin ah waxa rajaynayaa inaan si gaar ah uga hadli doono insha Allah rahmaan laylatul qadri iyo fadaa'isheeda oo farabadan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan ilaahay weydiisanaynaa nabi maxamed waxa uu weydiistay waxaan ilaahay ka magan galaynaa waxa uu nawiyaa